soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo ismaqal kale muddo weynu kala baadnay waxaynu bilaabaynaa taxanihii saddexaad godka Aflatoon kala garashada runta iyo riyada. si fudud baan u cafin karnaa cunuga mugdiga ka cabsada musiibada dhabta ah ee noloshu waa marka raggu ay ka baqaan iftiinka ama kaag badnaa muuqaalka aad sifaynaysaa waxaase ka yaab badan maxaabiistan iyagu waa sida annaga oo kale. Plato Republic cutubka 7. dhammaan shaqooyinka tirada badan ee culimada falsafada reer galbeedku ay ka taleexiyaan waxaa ugu qoto dheer uguna hoga tusaaleyn badan sheekada lagu magacaabo godka Aflatoon, allegory of the cave or Plato's cave, usturada cave of Aflatoon. sida magaca sheekada laga garan karo, sheekadan waxa curiyay filosoofkii Greek ah ee Aflatoon noolaa 428 ilaa 347 ciise hortii oo ku xusay cutubka 7 ee buuggiisa Jamhuuriyadda Republic oo uga faallooday mawduucyada cadaaladda, runta iyo quruxda. waana isla sheekada uu qayb ahaan ka duulayo filimka caanka ah ee The Matrix. Aflatoon sheekada waxa uu ka dhigay wada hadal dhex maray walaalkiis oo la oran jiray Glucon iyo macalinkiisa Socrates. sida Aflatoon qudhiisu uu sheegayna danta laga leeyahay sheekadu waa in la isbarbar dhigo raadka waxbarashada iyo waxbarasho la'aantu ay ku leeyihiin dabeecadeen, to compare the effect of education and lack of it on our nature. falsafada waxa lagu qeexay inay tahay jacaylka xikmadda ama jacaylka runta. ulajeedada sheekaduna waa in dadka loo sharaxo macnaha ay leedahay in qofku uu noqdo filosof xikmadda iyo runta jecel. buugga Bible-ku wuxuu xusaa in Nabi Ciise uu sarkaalkii Roomaanka ahaa ee maxkamadiisa qaadayay uu ku yiri waxaan u yimid si aan runta uga marakaco. kolkaasna sarkaalku uu Ciise weydiiyay runtu waa maxay, what is the truth? Nabi Ciise weydiintaas kama uusan jawaabin, laakiin tan iyo aaminadii falaasifada ayaa cimrigooda ku dhumiya raadinta runta. runtu waa kharaar tahay, dadka badankoodna waa ku adag tahay inay aqbalaan kharaarka xaqiiqada. arrinku wuxuu sii cuslaanaya marka xisaabta lagu darsado doodan stage ee sheegaysa in sideedaba aysan jirin wax xaqiiqo la yiraahdo ee waxa qura ee jira ay tahay micno iyo tafsiir walxaha la siiyo. There's no facts but the only interpretations. sheekada Aflatoon waxay ka hadlaysaa dabeecadda aadanaha iyo xoogaalnimadiisa. waxay ka waramaysaa sida ambiyada, aqoon-yahanada iyo filosoofiyadu ay ugu dhibaatoodaan runta ay dadka ugu yeeraan, iyo sida aqoontooda iyo niyad samaantoodu aysan waxba ugu tarin. maxaa yeelay had iyo goor dadku waxay isku qanciyaan in runtu ay tahay waxa iyagu ay og yihiin. si fududna kuma qaataan xaqiiqada ku cusub ee ka hor imanaysa wixii muddada dheer loo sheegayay ee ay u haystaan inay tahay xaqiiqo lama dhaafan ah. waana iyadii la yiri nabi tolkii karaamo kuma dhex yeesho. Aflatoon sheekada sidan buu u wariyay. waayaha ka mid ah koox dad ah baa tan iyo caruurnimadoodii waxay ku jireen god iyaga oo lugaha iyo luquntaba ka xiran oo aan gadaashood iyo hareerahooda midna eegi karin. dadkani danida godka ka baxsan waxba kale ma ay socon. godku wuxuu lahaa irid yar oo ku beegan dhabarka maxaabiista godka ku xiran. hortoodana waxa ahaa darbi. irida yar ee godka waxaa ka soo geli jiray ilayska dab godka banaankiisa ka shidnaa. godka banaankiisana waxaa ku til wadiiqo yar oo ay mari jireen dadka iyo noolayaasha kaleba. marka ilaysku uu qabto dadka iyo walxaha kale ee ku beegan godka ilinkiisana waxay sameyn jireen hoosiis ka muuqda darbiga ku beegan wejiga dadka godka ku dhex xiran. maxaabiiska godka ku jiraana hoosiiskaas hortooda ka muuqda bay waxay u qaateen inuu yahay walxo dhab ah, mana aysan suuraysan karin in waxa hortooda ka muuqda ay yihiin hoosiis iyo sawirro ay leeyihiin walxo dhab ah oo ka jira godka banaankiisa. kolka ay maqlaan jabaqda iyo codadka ka yeeraya godka banaankiisa ee darbiga uu ku soo celinayana waxay u qaadan jireen in hoosiiska hortooda ka muuqda uu yahay midka codka sameynaya. waxayna samaysteen sheekooyin magacaan iyo macno leh oo ku saabsan hoosaska ay u jeedaan oo iyagu ay u haystaan inay yihiin walxo dhab ah. waxay bilaabeen inay hoosiiska aqoonsi u yeelaan oo ay ka soo saaraan waxay isla fahmayaan.
sina uma aysan suuraysan karin jiritaanka duni godkooda dhaafsiisan. sida la og yahayna caruurtu kolka ay afka iyo adduunyada baranayaan waxay ka bilaabaan barashada magacaanta. quraankana waxaa ku jirta aayad sheegaysa in eebba uu aadan baray magacaanta walxaha oo dhan, wacallama al-aadama asmaa'a kullaha, taas oo lagu macneeyo inuu wax walba baray. yeelkadeeda maalin maalmaha ka mid ah ruux ka mid ah maxaabiistii baa si uun looga furay qoolkii iyo dabarkii uu ku qabirnaa. waxaana lagu khasbay inuu dhaqaaqo oo uu gadaashiisa eego. waxa uuna arkay ilayska godka ka soo gelaya iyo hoosiiska uu samaynayo. maxbuuskii wuxuu u dhaqaaqay dhanka iftiinka. waxa uuna u baxay godka bannaankiisa, laakiin indhihiisu waxay u adkaysan waayeen ilayska qorraxda ee aysan hore u baran. wuxuuna dareemay wareer iyo indho xanuun. nasiib wanaag xoogaa kadib indhihiisu waa la qabsadeen iftiinka, waxaana u kala soocmay walaxda iyo hooskeeda. wuxuuna ogaaday in walxuhu ay yihiin asalka hooska. wuxuuna arkay duni dhab ah oo ka ballaaran hoosiiskii yaraa ee derbiga uga muuqan jiray. waxuu daawaday dadka, duunyada, badda, beriga, buuraha, dayaxa, xidigaha, qorraxda, dhirta, shimbiraha, ubaxa iyo kumanyaal walxaad oo uusan hore u arag. horey waxa uu arki jiray walxo kooban hooskood, laakiin hadda waxa u muuqdaa kumanyaal walxaad oo wada asal ah, ama sida Aflatoon u dhigay, horey wuxuu daawan jiray khayaal qura, haddase wuxuu u dhow yahay dabeecadda runta ah ee jiritaanka. Previously he had been looking merely at phantoms. Now he is nearer the true nature of being. akhristo bal waxaad malaawaashaa xaaladda ruux indhala-aan ku dhashay oo isaga oo gaboobay hal mar aragga loo furay. maxbuuska xoroobay wuxuu dareemay farxad uu u riyaaqay dunidan baaxadda weyn ee uusan horey u arag. dhanka kale wuxuu ka murugooday jahligii iyo mugdigii isaga iyo saaxiibadii ay muddada dheer ku jireen. si gaar ah wuxuu uga sii xanuunsaday saaxiibadiis oo iyagu weli ku sugan dhalanteed aan xaqiiqada iyo hoosiisku u kala baxsanayn. saas darteed maxbuuskii horta noqday wuxuu istusay in ay waajib ku tahay inuu dib ugu laabto godka oo uu saaxiibadiis la socodsiiyo xaqiiqada cusub ee uu ogaaday si ay uga baxaan godka mugdiga ah ee ay ku jiraan. hase yeeshee goortii uu godka galay wuxuu dareemay wareer iyo mugdi uu wax la arki waayey oo ah xaalad u dhiganta midii uu dareemay markii uu godka bannaanka uga baxay. kaaga daranta saaxiibadiis kama ay rumaysan warka uu u sheegayo, waxayna u qaateen in la maray oo maskaxdiisa ay wax gaareen. markii uu doodiisa ku adkaystana waa ku jeesjeeseen, waana la coloobeen. ugu dambayntiina waxay ugu goodiyeen inay dilayaan haddii uusan ka toobadkeenin khuraafaadka uu faafinayo, maxaa yeelay waxay ku qanceen in aan loo dulqaadan karin doodiisa doqonnimada iyo jahliga ku dhisan. haddii aan laga hortegin inta ay goorigoor tahayna uu fasahaadin doono facyaasha dambe oo ku degmi doona beenta cad ee uu faafinayo. sheekadan inkasta oo si fudud loo dhigay, haddana waxa ay xambaarsan tahay weydiimo waaweyn oo falsafi ah, sida maxaa xaqiiqo ah, aqoonta halkeebaa asal u ah, iyo qaar kale oo badan. waxay tilmaan ka bixinaysaa sida maafurku uu ku yimaado, waxayna nagu tirtirsiinaysaa inay mar walba aan dunidan ku eegno indho ka duwan kuwii aan horey ugu eegi jirnay. Aflatoon wuxuu rumaysnaa in falsafadu ay tahay laanta aqooneed ee awoodda u leh in ay aadanaha ka xorayso godka jahliga ee ay ku jiraan. sida la og yahayna falsafada waxaa loogu tagaa su'aalo joogto ah oo maanka baraarujiya, laakiin looguma tago jawaabo joogto ah oo lagu xasilo. sheekadu waa sarbeeb ka turjumaysa waaqaca dadku ay ku nool yihiin, waxayna tilmaamaysaa in xaqiiqadu ay ka gedisan tahay sida dadka badankoodu ay u haystaan. dadku iyaga oo dabran bay waxay isu haystaan inay xor yihiin. qofku wuxuu adoon u yahay nidaamka dhaqan dhaqaale ee uu ku soo ababo caadada, dhaqanka, dhaqaalaha, diinta, madhabta, siyaasadda, waxbarashada, khuraafaadka iyo qaar kale. godku waa astaan u taagan adduunyada. maxaabiista godka ku jiraana waxay matalayaan aadmigu sida uu badan yahay, waayo aadanu ma aqbalaan wax ka duwan waxay dareemayaashooda ku ogaadaan iyo waxa dadku u laqimaan. dadka godka ku jira maadaama aysan ogeyn wax ka baxsan hoosiiska hortooda ka muuqda,
waa ku qanacsan yihiin aqoontooda iyo noloshooda godka. ciddii isku dayda inay u sheegto wax ka duwan waxay arkayaan waa la culoobayaan, waayo dabeecadda dadka ayaa ah in ay la culoobaan wax aysan aqoon. al-insaanu caduwwun maa jahla. oraa dadka qaarkood ay xadiis ku sheegaan, dadka kalena ay rag kale uga abtiriyaan baa waxay tidhaahdaa dadku waa hurdaan, marka ay dhintaan bayse baraarugaan. annaasu niyaam idaa maatuu intabahu. abaayo maxay ku baraarugayaan? ilayska qoraxdu waa astaan u taagan falsafada oo laga dhaxlo jacaylka runta iyo maanfurnaanta. caadi ahaanna dhan waxaa la xiriiriyaa hurdada iyo mugdi, dhanka kalena baraaruga iyo iftiinka. marar badanna diimuhu alle ama abuurka waxay ku tilmaamaan inuu yahay iftiinka ama nuur. sida la wada ogyahayna ummadihii hore qaarkood baa dayaxa iyo qoraxda Ilaahay ka dhigtay kadib markii ay u bogeen ilayskooda iyo waxtarkooda, isla jeerkaasna ay ka baqeen saameyntooda. maxbuuska xabsiga ka baxay ee ilayska iyo adduunyada arkay wuxuu u taagan yahay dadka tirada yar ee marka ay xaqiiqada ogaadaan isku daya inay dadkooda wacyigeliyaan iyo dhibka ay arrinkaas kala kulmaan. aqoon-yahanada, filosoofiyada iyo waxgarad kasta oo u fakara si ka duwan sida dadweynuhu ay u fakaraan. Aflaaton wuxuu qabaa in loo baahan yahay in qofku uu maro 3 marxaladood oo kala ah marxaladda godka lagu nool yahay, marxaladda godka bixidda iyo marxaladda god ku noqoshada. qof kasta wuxuu ku dhashaa god gudihiis oo wuxuu ku ababaa afkaar, caadooyin, dhaqamo iyo diin loo arko inay yihiin xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah. dadka badankooduna marxaladan ma dhaafaan oo godkii ay ku dhasheen bay ku dhintaan. marxaladda labaad ee godka bixiddu waa marka qofku uu isku dayo inuu ogaado wax ka duwan wixii loogu soo tarbiyeeyay. marxaladda saddexaad oo ah midda maraaxisha oo dhan ugu muhiimsan waa marka qofku uu ku noqdo godka si uu dadkiisa ula wadaago xogaha iyo xaqiiqada cusub ee uu ogaaday. sababta godka loogu noqonayaa ma aha in godka la dego, balse waa sidii looga saari lahaa kuwa godka ku sugan. Aflaaton wuxuu qabaa in qof kasta oo arkay dunida godka ka baxsan uu korayo waajib akhlaaqi ah oo ah inuu godka ku noqdo si uu u badbaadiyo kuwa weli godka ku sugan. dhanka kale waa in lagu baraarugsanaado in muhiimaddu aysan ahayn godka laga baxo keli ah, balse ay tahay sidii godka banaankiisa loogu sugnaan lahaa. waxaa suuragal ah in qof god ka baxay uu god kale ku dhaco oo uu hoosiis mid kale ku bedesho. ruuxa marka uu wax cusub ogaado u qaata in uu wax walba ogaaday wuxuu la mid yahay ruux god ka baxay oo mid kale ku dhacay. ma jiraan cilmi dhammaystiran iyo xaqiiqo runtu ku idashahay. aqoonta iyo xaqiiqadu ka weyn wax si buuxda gacanta loogu dhigo. mar walbana baab hor leh baaba laqma. sidaa awgeed waa in marka aan masalo ogaano aan ku baraarugno in masaa'il badan oo hor leh ay noo dhiman yihiin. imaam Shaafici oo noolaa 767 ilaa 820 miilaadi waa kii ku maasooday in mar walba oo waayuhu ay idbiyaan uu ogaado garaadyaridiisa. masaladii kasta ee uu bartaana ay tusto jahliga weyn ee uu ku sugan yahay. aayad quraan ahina waxay leedahay cilmiga wax yar baa la idinka siiyey, wamaa uutiitum min cilmin ilaa qaliila. ruuxa runta raadinaya wuxuu u baahan yahay in uu shakigiisa ka shakiyo, wax walbana uu weydiin ka keeno. Aflaaton markii uu sheekadan qorayay wuxuu maanka ku hayay dhacdadii naxdinta lahayd ee uu la kulmay macalinkiisii Suqraad. Suqraad wuxuu ahaa aqoon-yahan lagu sheegay akhlaaq suuban iyo garasho sare, una taagnaa difaaca akhlaaqda iyo runta. laakiin dadkiisii reer Atena baa la culoobay oo ku eedeeyay in uu ilaahyadooda liido, dhalintoodana marin habaabiyo, kuna xukumay in la daldalo. xukunkaas xaqdarrada ah dartiis baana Suqraad u dhintay, mana uusan baxsan isagoo haystay fursad uu ku baxsan karo. laakiin wuxuu door biday inuu dhinto halkii uu ka jabin lahaa mabda'a noloshiisa oo dhan oo uu dadka ugu yeeri jiray in ay ixtiraamaan. mabda'a uu rumaysnaabaa kala qiimo badnaa naftiisa. waxaana la wariyey in ereygii ugu dambeeyey ee uu saaxiibadii ku yiri uu ahaa waxa la gaaray saacaddii kala tagga ee qoladeen kasta ay waddo gaar ah qaadi lahayd. anigu waan dhimanayaa, idinkuna waad noolaanaysaan. midda roonna rabbi oo keli ah baa og. Suqraad oo sheegi jiray in hooyadiis ay ahayd umuliso haweenka ilmaha ka umulisa, isaguna
uu xirfadaas hooyadiis ka dhaxlay oo uu ragga afkaarta ka umuliyo dhalinyaradii Athena ayuu wuxuu u sheegay inay si xor ah u fakaraan waxna u baaraan wuxuuna eersaday isku daygaas uu ku doonayay in uu dadka uga saaro godadka mugdiga ahaa ee ay ku jireen welina ku jiraan dhacdadaas Socrates qabsatay Aflatoon waxay ku keentay in uu ka aamin baxo siyaasiyiinta damaca badan ee dantooda oo kali ah ku mashquula wuxuuna istusay sida qura ee dulmiga lagu guuleysan karo laguna heli karo dawlad si cadaalad ah bulshada ugu adeegta ay tahay in filosoofiyadu ay talada qabtaan isaga oo qodobkan ka hadlay wuxuu yiri aadmigu ka bixi maayo hooga jeer filosoofiyada dhabta ay awoodda talada qabtaan ama xagga alle ay ka timaado mucjiso madaxa magaalooyinka ka dhigta filosoofiya dhalad ah sida la og yahay Aflatoon wuxuu ku dooday in filosoofka dhabta uu yahay kan geerida uga tababarta sidii in daqiiqad kasta ay naftu ka bixi karto falsafadu waxay danaysaa runta iyo siyaasaduna iskuma san banaana oo waatan qalatay Socrates kadib markii dimuqraadiyadii Athena ay u adkeysan weyday runtiisa Aflatoon wuxuu doonayay in runta la raadiyo caqligana laga xoreeyo dabarada dhaqan-dhaqaale ee kan siyaasaddu uu ugu horeeyo sheekada godkuna waxay si cad u muujinaysaa xaaladda dadku ay ku noolaanayaan marka ay siyaasiyiinta iyo wadaadadu isu dhiibaan waxa ku qanacsanaa inay waxbarashadu tahay mid dadka ka xoreyn karta awoodda siyaasiyiinta aqoonyahankuna uu yahay kan xilka isbedelku uu dusha ka saaran yahay casharada faraha badan ee laga baranayo sheekada godka Aflatoon waxaa ka mid ah in dadku aysan soo dhaweyn ruuxa bedela aragtidiisa iyo sidoo wax u arko si la mid ah sidii dadkii godka ku xirnaa ay u diideen wixii uu sheegay qofkii banaanka ka soo noqday oo kale baa ehelada iyo asxaabtu uga hor imaadaan qof kasta oo lagu arko ama laga maqlo wax aan hore loo aqoon dabeecadda dadka ayaa ah in ay iska caabiyaan wax walba oo ka duwan wixii ay hore u arki jireen xilka saaran ruuxa godka ka baxayna waa in uu godka ka saaro tirada ugu badan ee suuragalka ah waxa ugu yar ee laga fishaana waa in uusan naftiisa uga raali noqon in ay dib ugu noqoto godka mugdiga ahaa ee ay ka soo baxday filimka The Matrix waxaan ku arkaynaa Morpheus oo Neo ku leh Neo weliga ma ku riyootay riyo aad si weyn u hubtay in ay dhab tahay maxaa dhacay haddii aad ka soo toosi weydo riyadaas sidee baad ku kala ogaanaysaa farqiga u dhaxeeya dunida riyada iyo dunida dhabta haddii aadan riyada ka toosin akhristo su'aasha la weydiiyay Neo waa mid u taal aniga adiga iyo ruux kasta oo bini aadam ah haddaba aan ka toosno riyada oo u kuurgalno afkaarteenna iyo waxa hareeraheenna ka muuqda iskuna dayno in aan kala garanno walaxda iyo hooskeeda dhabta iyo dhalanteedka runta iyo caadada intaas buu noogu eegyahay barnaamijka maanta oo ah godka Aflatoon kala garashada runta iyo riyada waxaa qoray Cabdi Saciid Cabdi Ismaaciil oo dhammaan qoraaladiisa qoran ee dhigan ogolaanshiyo buuxa u siiyay Mir Podcast in lagu soo gudbiyo iyaga oo dhageysi ah